war degdeg ah madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor ayaa isagu wacay golihiisa wasiirada iyadoo saacadaha soo socota ay suuragal ay tahay in lagu dhawaaqo guddiga doorashooyinka ee galmudug madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor iyo villa soomaaliya ayaa xiriirkooda sii xumaaday maalmihii lasoo dhaafay iyadoo ka dhashay labada dhinac khilaaf culus oo u dhexeeya kaasoo sababi kara in xitaa galmudug ay suuragal ay tahay inay ku dhawaaqdo guddiga doorashooyinka madax bannaan ee galmudug madaxweyne galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor ilo xog ogaala rasmi ayay sheegeen in ujeedada isugu wicitaanka ee golihiisa wasiirada ay tahay sidii ugu dhawaaqi lahaa guddiga doorashooyinka ee galmudug isagoona doonaya in doorashada uu ka qabto ee galmudug doorasho degdega villa soomaaliya iyo galmudug ayaa maalmihii lasoo dhaafay uu sii xumaanayay xiriirkooda iyadoo horey loo dhexdhigay heshiis ee labada dhinaca gaar ahaan madaxweyne xasan sheekh maxmuud iyo axmed cabdi kaariye qoorqoor ayaa ka heshiiyey arrimo ay ka mid ahaayeen in lasii wado xiriirka u dhexeeya dowladda federaalka soomaaliya iyo maamul goboleedka ee galmudug mar kale waxaa sii xumaatay xaaladda iyadoona axmed cabdi kaariye qoorqoor ilo xogogaalo rasmi ay sheegeen inuu ku dhawaaqi doono guddiga doorashooyinka ee galmudug si uu u qabto ee doorasho degdega sidii koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed laftigareen u qabtay inkastoo villa soomaaliya ay duulaan ay ku qaaday ay kaga adkaatay madaxweynihii koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed laftigareen oo halkaa isaga tagay